asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan qodobada warkeena maanta aan idiinku haynana waxaa ka mid a xiisada u dhaxaysa wadanka indiya iyo wadanka jayne, wadanka liibiya dhulkii uu xaftar ka tegay oo laga helay miinooyin fara badan iyo dad ku dhintay. qodobo ayaa idinka haynaa daawadayaal, kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan. Initiating System 1. System 1 loaded. waayahay mar kale kusoo dhawow daawade qodobada warkaas oo faahfaahsan. taariikhdu maanta waa 2020 bisha 6 16 aan ku bilowno. xiisada u dhaxaysa wadanka indiya iyo wadanka jaynaha ayaa sii kordhaysa markii wadanka indiya laga dilay 3 askari oo kamid ah ciidamada qaranka ee wadanka indiya. 3dan askari mid wuxuu ahaa sargaal, waxa sida la sheegay, labana waxay ahaayeen askar dablaya, waxaana lagu dilay gobolka loo yaqaano Galfan Valley. xuduuda u dhaxaysa labada wadan ayaa dhan 3488 kilomitir. dowladda jaynaha waxay ku eedeysay ciidamada indiya inay kasoo tallaabeen xuduuda tiraba 2 jeer 15kii bishan aan ku jira ee June. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka jaynaha Shu Lian wuxuu sheegay in ay si sharci darro ah ciidamada indiya uga soo tallaabeen xuduuda u dhaxaysa labada dhinac ayna soo galeen wadanka jaynaha. wasiirku wuxuu sheegay in xaalada wadanka minka labada wadan ay degan tahay, sidoo kalena ay ka shaqeynayaan sidii loo dejin lahaa xiisada u dhaxaysa labada dhinac. wasiirku wuxuu sheegay si sharci darro ah inay ciidamada indiya uga soo tallaabeen xuduuda u dhaxaysa labada wadan. haddaba xiisadani waxay soo bilaabantay horaantii bishii May oo labada dhinacba kusoo daabuleen ciidamo xuduuda u dhaxaysa labada dhinac. sidoo kale waxaan ognahay wadanka jaynaha inuu gobollo ka haysto wadanka indiya. kooxaha loo yaqaano YPG iyo PKK ayaa lagu eedeeyay inay 11 ban kusoo weerareen gobolka Afrin. iminkana Liibiya, ciidamada Liibiya ee aqoonsan tahay qaramada midoobay ayaa u dhaqaaqay xagga iyo sirta, halkaas oo ah halka uu ninka ku hadhan yahay hadhaagii Khalifa Xaftar oo laga adkaaday gudaha Liibiya. sidoo kale ciidamadu waxay isku diyaarinayaan siday u weerar lahaayeen Khalifa Xaftar. xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuu baaq u diray inay ilaaliyaan wadanka indiya xuquuqda dadka Kashmir iyo ciyaalkooda. wadanka Turkiga iyo wadanka indiya waxaa la sheegay inay dhaqaalahoodu si tartiiba u kordhayaan, taasoo noqon doonta mustaqbalka mid ay guul ku gaadhaan. haddaba ciidamada jooga wadanka Liibiya ee wadamada Turkiga ayaa miinooyin ka baadhaya dhulkii uu ka tegay Khalifa Xaftar. sidoo kale waxay ka baadhayeen guryaha miinooyinkii uu kaga tegay Khalifa Xaftar. Khalifa Xaftar ayaa dhul badan kaga tegay miinooyin ku aasan, sida miinooyinka taangiyada iyo sidoo kale miinooyinka lagu aaso guryaha oo kuwaas oo lagu xidho handhaliska guryaha. haddaba koonfurta magaalada Tripoli ee wadanka Liibiya waxay miina kula kacday 39 qof oo rayida, kuwaas oo marayay koonfurta wadanka Liibiya ee magaalada Tripoli. gantaalo ayaa lagu weeraray saldhigga Mareykanka ee magaalada Baghdad, laakiin lama sheegin wax khasaare ah oo kasoo kordhay halkaasi. Isniintii, xogayaha jaamacadda Carabta kaasoo lagu magacaabo Axmed Baw wuxuu sheegay wadanka Turkiga inuu faragelin qawan ku hayo wadamada Carabta sida Syria, Liibiya iyo wadanka Iraq. wuxuu sheegay faragelintani inay tahay mid aanay dani ugu jirin wadamada Carabta oo ku danaysanayo wadanka Turkiga. sidoo kale wuxuu ugu baaqay jaamacadda Carabta in ay cod aqlabiyada ku ansixiyaan inuu ciidanka Turkiga ka baxo wadamada Iraq, Liibiya. sidoo kale wuxuu sheegay shirka dhacaya bisha March in ay ku ansixin doonaan qaraarkaas oo ah in laga qaado ciidamada Turkiga gudaha
wadanka Liibiya iyo wadanka Iraaq. Iminkana Algeria. Madaxweynaha wadanka Algeria Cabdilmajid wuxuu sheegay inay xal u raadinayaan dib u soo celinta dhinacyada ku dagaalamaya iyo heshiisiinta iyo in la dhameeyo dagaalka ku daadanaya wadanka Liibiya. Madaxweynaha wadanka Algeria Cabdi Al-Majid wuxuu sheegay inay xal u raadinayaan sidii dib loogu heshiisiin lahaa labadan dhinac oo xiisadaas oo ka taagan wadanka Liibiya. daawadayaal waxaan qodobayden ka haynay dhammaanba dunida daafaca caalamka waa naga intaan ku kulmi doono mid lamida waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.